بسم الله الرحمن الرحيم مروي إيه مدن يالدمان داودياش شرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة داوشة برنامجكي دينته إيوه نلاشة مركزتي أو سنة ضماده أم بهان نقضه سنة كان جيسيجا أم بميلادية أم بالسنة الهجرية وحال يسدول تاجا وقتها وحال ضمادي سنة كي يكون أفر بقول إيوه أفر إيه لباتن كي هجرة waxoogaa ba ka soo wareegay ilaa 10 maalmood ba ka soo wareegay run ahaantii sida darteed isma dul taagayno hijradii iyo duruustii ku jiray iyo arrimaha ku saabsanaa laakiin waxaan qaadaa dhigaynaa oon isla falanqaynaynaa waqtiga qiimaha uu leeyahay iyo sida loo baahan yahay in looga faa'iideysto run ahaantii waxaa sharaf ii ah inaan ku marti qaado studio-ga shakhsiyad ama sheekh in badan ka hadla arrintaas oo si gaar ah isku taxallujiya mar dhaweyd oo arrintaas meel fagaara ah kaga hadlay waxa uu ku tilmaamay uu soo jeediyay arrin uu ugu magac daray ru'ya sharciya litacaamul ma'a alwaqt waa ru'ya amba aragti ka soo jeeda sharciga sidii loola fangeli lahaa loogana faa'iideysan lahaa waqtiga waxa weeyaan sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir ahlan bik sheekhana sheekh Cabdiraxmaan waxaan jeclaan lahayn arrintaas inaan kula falanqeyno laakiin intaanan gelin bal hijrada in yar oo gaaban iyo sanadkan jadiidka ee hijrada waxa uu kaga duwan yahay sanadadii hore inaad noo soo kobtid baan jeclaan lahay sheekh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd marka ugu horeysa waxaan oran lahaa sanad wanaagsan dadka muslimiinta ah iyo axmed waxaan ku oran lahaa sanad wanaagsan adigana iyo barnaamijkaaga sanad wanaagsan insha Allah taala intaas kadib waxa weeyaan horta hijrada culumadeena islaamku wax badan bay ka sheegeen nooma saamaxayso fursadu wax kale ka hadlaynaa inaan hadal yar oo kooban ka idhaahdo hijrada maanta waxaan kala soo bixi lahayn saddex arrimood baan oran lahaa hijrada ka hor nabigu muxuu sameeyay waa arintan kala soo baxayno arinta labaad hijradu intii ay socotay rixladii voyaashkii socodkii booqashadii orodkii intii uu socday muxuu nabigu sameeyay iyo hijrada dabadeed nabigu muxuu sameeyay xaliis salaatu wasalaam oo maanta ka faa'iideysana haddaan ku bilaabo hijrada ka hor dadkeen in badan waxay ka sheekayaan nabigu inuu Madiina ka baxay inuu Madiina tagay laakiin waxa ka maqan inuu nabigu hijrooday moral ma aqliyan iyo ruuxiyan iyo dabeecad iyo dhaqan inuu horta hijrooday intuuna hijroon jirahan aayadda quraanka oo suuratul mudaththir ku jirta ilaahay wuxuu yiri warrujza fahjur waxay culimadu yiraahdaan suuradda suuratul mudaththir ay aayadaasi kamid tahay waa suuradii quraanka ugu soo hordegtay kadib markii iqra nabigu markuu khadiijo u yimid wuxuu kali dafiiruni idaga markaas ilaahay jibriil buu soo diray isagoo meeshii nabigu duuduuban oo qarqaraya waxa lagu yiri warkanis duuduubayo sarakac oo dadka u dig ilaahay weyne dharkaaga nadiifi waxa lagu soo gabagabeeyay warrujza fahjur xumaanta mujtamacu ku jirana ka tag marka inaan ka faa'iideysano hijrada waxa weeyaan intuu nabigeenu hijroon oo jid ahaan hijroon wuxuu hijrooday moral ahaan maanta anagu inaan taa ka dayana muhiim maaha inaan ka dayana inaan orano waxaan hijroonina wadankan ka tagana dadka imika qaxootiyoobay baxsaday waxa soo dhan macnaha horta hijro adigoo xumaanta ka hijro reerkaaga wanaagiisa ku hijro maaratay diin la'aanta ka hijro cibaada la'aanta ka hijro dadka dulmiska ka hijro waxa soo dhan baleena marka warrujza fahjur ayada quraanka labada kelmadooda waa wax weeyeen aan dabaqno روجي جارودي بان اوغا فجعي سدو اسكو دول تاغي روجي جارودي wuxuu yiri waa laba kelmadood sidii nabigu xadiis kale ku yiri oo afka ku fudud laakiin dabaqadood adagtay warujza fahjuwan oo naas ka dhafay waqti laakiin markaan caalamul waaqi orano iyaga dabaqay karaya waa taas wax adagtahay marka taaban ka baxayna inta baan koor lahaa qabla hijra wax badan baa ka jira laakiin kelmadan ku soo koobi lahaa waqti macnaha waxaan u jeedaa 11 sano ka hor buu nabigu hijroodiba waana taa garanooyaan oo isbedel weyn uu ku sameeyay markaan u imanno taasi waa macno moraal oo aqli ah oo maartay akhlaaqda iyo diinta iyo aqoonta waxa jirta macno hadhow noogu iman doona dhakan maxaan ku dhahdaa waqtigan ka sheekeynaa waxa jirta wax la dhahdo oo culimada islaamku ay maanta ka sheekeynayaan oo gaaladuna aad u qorano planification ma dhahdaa taqtiid markuu nabigu inuu hijrado doonay ilaahay baa ilaalinay subhanahu wa ta'ala ya ilaalinay ilaahay baa ilaalinay ilaahay oo hadana ilaalinaya asna ul hijra wuxuu nabigu yiri
wuxuu sameeyey wax wal oo gaalada indhatiri lahaa wuxuu khudo dhigay sidii uu nebigu u indhatiri lahaa cadowga ilaahay ee doondoonanay subxana watacaala awalan muxuu sameeyey habeenkii uu nebigu meeshii uu seexanayey wuxuu seexiyey inankii yaraa uu korinayay cali bin abi taalib firaashkii buu seexiyey markay soo qaaqaawisaan aqalkii yaraa rasuulka jajabnaa waxay arkayeen nebigii oo sariirtiisii markaa aad u wereeriyey uu joogaa buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saacad aan saacaddii ahayn buu abibakar u tagay dadka loo iman jiray xilli duhur oo qaylulaha markaas buu nebigu ka yidhi abubakar aqalka iyaa fadhiya wuxuu nebigu abubakar ku yidhi aniga iyo waxaa fadhiya dadkii ku jeclaa markaa buu rasuulku ka yidhi ma baxaynaa asuxbatu walijra adna waad raacaysaa waan wada baxaynaa sidaa baa lagu baxay haddana nebigu waqtigaas waqti dadna baxaan ma ahayn waqti uu nebigu dad siyaartana ma ahayn waxaa kaloo aada u yaab badnaa nebigu nin aad dariiqa u yaqaanay si dadka loo lumiyo oo gaala ayuu karaystay oo la oran jiray ibnu urayqad markaa taasina macno weyn baa ku jira inaad doodoontid ninba ninkuu ka maskax badan yahay ood uga faa'iidaysatid barnaamijkaaga markaad ayuunan ahaaninba fikradba inaad isku ahaan isku diinba inaad ahaan maaha maaragtay sida iminka dadkeenu ay qabaan qofkaasi waa caynkaa maaha waa gaal buu ahaa diinta laakiin nebiga cadow kuma hayn nebigana cadow kuma hayn gaal buu ahaa cadowna ma hayn waa inaan kala saarno qofku waa gaal iyo waa cadow inaan labada kala saarno marka ninkaabuu ka faa'idaystay uu qaaday uu karaystay nebiga awrkii maanjeeda uu korayena waxaa soo kireeyahayd abubakar waxoo dhan abubakar baa diyaariyey haddana dariiqa la mari jiray madiine laga aadayey uu iskaga weecdo dariiq kaloo nebigu maray calayhi salaatu wasalaam iyaduna maskax kale ku fadhiday haddana rasuulku wuxuu gudagalay inuu hog galo 3 cisho hog buu 3 cisho ku dhuumanaya 3 cisho waa 3 cisho go-aysa dodoonku intaa xuduudda makiya madiinaba laga soo noqonaya waan weynay la oranayo meel buu ku yara bariga ku qabtay arrinta labaad nebigu sameeyay salaam wax weeyaan dad buu u xil saaray in ay ahaadaan dadka dhinaca qoodinta ka shaqeeya oo gabadhii asmaa ayaa la yidhahdo wax ka shaqeysaa qoodinta mid wuxuu u xil saaray raadka gabadha qoodinta keenaysa inuu baabi'iyo waa kii xoolaha u jiray abubakar in abibakarna waxaa loo xil saaray inuu wararka qurayshta keeno had iyo jeer habeenkii intuu soo dhegaysto halkay marayaan soo fikirayaan uu warka keeno ree abubakar oo dhan hijrada ka qayb galeen mid cuntay soo samaynaysaa qaar xoolii bay ka shaqaynayaan qaar warkii bay ka shaqaynayaan ninna nebigii waa raacay buu islaam alaabtii ku dhex jiraa marka intaas oo dhan waxaa la dhahdaa takhtiid bay ahaayeen nebigu wuxuu samayn karay oo dhan ilaahayna wuxuu ku leeyahay waxaad karaysid uu gar isagoo la ilaalinaya nebigu ilaahay wallahi yaxsubuhu annaas ka yidhi marka maxaa dee inoogu jiraad sheekhleeda inaad tiraahdid waxaa inoogu jira waa taariikh waan aragnaa intaa waan idhaahnaa maxaa inaga inoogu jira waxaa inoogu jira inaan nolosheenna ku salayno planification takhtiid qofku marka uu wax qabanayo inuu wax khatido waxaa baan rabaa saabaan u rabaa halkaa baan ku gaadhi doonaa maanta ka fadhiisan doonaa cashirkeenna marka nebigii ilaa baa hijradiisa ku saleeyey takhtiid lianna nebigu maxay waa qudwa calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waxaan ka baxaynaa iyadoo kooban أثناء الهجرة runtii sheekh koley baan kal marmar baan saaraa madax xalaqad gaar ah amba barnaamij gaar ah ku soo qaada dhigtiin dadkeena nusuus fara badan oo jirta iyo qadarka ilaahay wixii ilaahay uu doono sidoo doono u dhiciyo arrimo badan baa iyo inagu qufulan marka qofku waxa laga yaabaa inuu qiimo siini waayo dhinacyadan had ka hadlaysid in uu qofku planifiyeeyo waqtigiisa inuu hagaajiyo uu takhdiidiyo oo uu waxaaban qabanaya uu program sameeyaba inuu siraado de wixii ilaahay rabaa dhiciye waxaaban de ka sameynaya waan ku soo qaadi doonaa baltii saddexaad ee atiri hijradii dabadeed iyadna si kooban tii saddexaad markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina yimiday magaaladii nuuraysa soo galay reemaka way soo eryadeen bal inay dilaan bay doonayeen waxaa la ballan qaaday ninka qoortiisa keena isagoo nool isagoo dhintay wuxuu leeyahay 100 awr 100 halaad oo ku cascasa madiinana wuxuu ugu yimid suurad kale iyada oo say u dhan tahay sara kacsan oo weliba heesaysa oo dariiqadii la joogo subax walba la soo baxayo geedaha iyo buuraha la korayay oo la lahaa rasuulkii ma soo daalacay maxay ku heesayeen dalaca albadru calayna min thanayaati alwidaac وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع مرحبا جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله عليه وسلم رسال أبط دمر ورقوين دقاء وحي ربا والهيسا عجيب نبي مركو مقالدي سوق لي هشيسي قصوا ودولكو سيهي ولا اسكو ديري أنا يقول مركو دافو قرضو دافو أويسي
ilaa iyo dariiqii madiina uu ka soo galay ilaa uu yimid xataa barakat naaqatahu fi lmakaan alladii buniya fiihi masjidu marka waxaan uga jeedaa nebigu markuu halkaa fadhiistay laba ubadaa meeshaa lahayd ibnay cafraa la ohan jiray nin baa mas-uulka ahaa ninkii baa ku yidhi yaa rasuul allah meeshan laba nin baa leh anaa kaa kaafiye anaa iibini aduu iska degadeeto markuu nebigu degay alai slam wuxuu qabtay 4 arrimood 4 arrimood baa inooga baahan inaan ka faa'iidsano bas arrinta koowaad uu qabtay miskiid buu dhisay binaa masjid wax kale ma qaban miskiid gurigii gey mu oran hanasta mu oran markiiba sharaca fi binaa almasjid inuu galo miskiidkii buu dhisay markaa ay saxaabadu lahayn lain qacadnaa warasuulu yacmal haddaan fadhiisanna rasuulkii oo shaqaynaya fadaaka alcamalu lmudallal belan waa camal lunsankaasi markaabay lahaayeen allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira nolol ma jirto ilaa ta aakhira maahine rasuulkuna wuxuu dhadaa ilaahu u naxariiso muhaajiriinta iyo ansaarta waxaa hees hawleed baa saa loogu qaadayay nebiga iyo saxaabadii calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa arrintii koobaad weyaan macno weyn baa ku jira waanu imananaa ama waan raacina waxaan oranayna waxaa ku jira inuu masaajidku yahay lafdhabarka nolosha dadka muslimiinta bilaa miskid iyo muslim ma wada soconayso miskiidku tacliim buu ahaa jaamicad buu ahaa ruuxda lagu dhisay rool weyn buu ka ciyaarasha arrinta labaad uu nebigu qabtay wuxuu ahaa bacda markuu saa arrintiisbayba dadkiibuu walaaleeyey wuxuu ka yidhi intuu u yeedhay buu ta'aakhaw akhawayn laba u walaalooba waa liawal mara taariikhdu ay qorto laba ruuxoon wada dhalan oo walaal noqda oo wax walba kala qaybtama ibn cawf ninkii lala walaaleeyey wuxuu ka yidhi intuu gacanta qabtuu ka yidhi war waxan waa islaantaydi labada dumar baa qabaahe ta ku cajabisa qaado oo kuu furiyo markii cuddo baxdana guurso labadan beerood baan leeyahay ta ku cajabisa qaado xoolahaygu waa intana labaan ka inta wax kastiba uu qaybiyey waxaa la yidhi cajiib waa ninkaasiba laakiin ibn cawf baa ka cajiibsanaa wuxuu ka yidhi wariyaa xoolahaaga ilaahay ku barakeeyo walaal fiican baa tahay laakiin suuqa kaalay tus lacag yarna iyo amaahi waxooga yaroo ra'sa maala amaahi weliba isii maaha amaahi buu markaa baa la yidhahdaa shahaamatu lmuhaajiriin baa taa dhadaa muhaajiriintu iska diidkii raganimadoodii wayaan tanna waa iithaaru lansaar iyo ansaarta maarata doorbidista naftooda ka doorbideen labadaabaa isqabsatay mujtamacataa baa lagu dhisay akhweyn cajiib ahayd arrinta saddexaad waxay ahayd wasiiqa la qoray dastuur liawal mara fi taariikh halkaa sheekh cabdiraxmaan intaanan ka bixin waxaan oran lahaa waxaa ku jirta arrin weyn iminka dad barakaca iyo qaxooti tag iyo dhibaatooyin fara badan baa soo waajaha dhibaatooyinkii halkii kaamba looga samayn lahaa wixii oo dhan ayuu solution loo helo qof iyo qof unbaa loo dhiibay qoyskiiba qoys unbaa loo dhiibay ma jirto waxaa baaba'ay wax dhacda dad meel la fadhiisiyo qaxooti dhacdo oo meel degan oo muhaajiriintu waxay noqdeen sharaf maaragtay diinade ma noqon dad meel fadhiyo go-an ma ay noqoneen mujtamac iska dhex jireen waa run weyn taas jazaaka allah khayr arrinta saddexaad waxa weeyaan waxaa la qoray wax dhada wasiiqadu waa maxay waa dastuur maanta khalad baa la galaa historika khalad taariikhiya marka leeyahay dastuurkii ugu horreeyay ingiriiskaa qoray amba laleeyahay faransiiskaa qoray amba laleeyahay waxaaba qoray waa been weeyaan dambilow sheekh waqtiga horteed bay qorayba malaha dastuurka ugu horreeyay nebigaa qoray calayhi salaatu wasalaam way qoran tahay waxaa dhada qaanuunkii ugu horreeyay xamaraawi baa qoray oo ciraaq baa lagu qoray marka qaanuun laga hadlayo ninna ma sheegan kara arrintaas xamaraawi hortii wax la ogyahay ma jirta ilaa maanta dastuur ma kala dhahdana oo qoran oo dadka dastuurkaasi xukumayana ay qoran yihiin magacdoodii iyo reeruhoogii iyo waxay kale yihiin awalu man katab maxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam arrintaa waxaa aada u caddeeyey ninka la dhahdo maxamed xamiidullah waa nin bakistaaniya laakiin nationalite faransees buu haystay wuxuuna xukumi jiray wuxuuna ahaa maaragtay professor weyn oo jaamacad ka dhiga faransiiska ninkaasi kitaab buu qoray la dhahdo waxyaaladii uu nebigu qoray baa dhalaa wuxuu nebigu qoray ee risaalado o dhan ayuu qoray wuxuu ugu taabaana ugu horeysa wasiiqadaa buu qoray yuhuuddu ku qoray wuxuu ku qoray qurayshtii ka imatay muhaajiriintii ansaartii buu ku qoray dadkii islaami buu ku qoray nin walbana xuquuqdiisii buu qoray iyo waajibaadkiisii waxa lagu leeyahay iyo dowladda xuduudeedii waa cajiibka taas dowladdu waa maxay waa dhul dowladdu maxay ka tahay dhul iyo dad iyo maamulkii waa nebi maxamed buu sheegay dadkiina uu tiriyey qolo kasta baa la sheegay dhulkiina uu sheegay madiina iyo xuduudeeda intaana waajibaadkii uu sheegay walidaalika culimmada iminka siyaasadda baadha amba qaanuunka dawliga baadha waxay isku waafaqsan yihiin inuu dastuurka aan lagu horreyn laakiinse gaaladii baa naga tiri wax kale naga tiro sidii dee babqaaga shimbirka dadka daba hadla unbaan ku celcelinaa arrinta afraad ee ugu dambaysa ee maalintaa uu nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam iyaduna inaan waarino u baahan waxa weeyaan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkii bini aadanka khudbadii ugu horeysay uu jeediyey yaa qiimo mudan oo maanta inaan xusna mudan wuxuu yidhi nin baa yidhi saxaabiga nebiga waxaan arkay isagoo leh waryaada maalintaa nebigu calay slam wuxuu ku celinay buu yidhi hadalkiina hagaajiya
hadalkiina hagaajiya waxa weeyaan salaanta faafiya rasuulka risaaladiisa soo koobaya hadalkiina hagaajiya salaanta faafiya in dadkoo hurdana tukada dadka u hurda oo habeenkii wada jiifana tukada jannada ilaahay nabadgelyaad ku galaysiin waa tahay risaalada islaamku ee maanta terrorist leeyahay waa tahay risaalada islaamku risaalada waxay hadalkaaga hagaaji nabadgelyada faafi salaadana tuko jannada ilaahay baad galay adoo nabad qaba ma ka baxay cajiib afartan arrimood ee had tilmaamtay sheekh cabdiraxmaan waa arrimo aad iyo aad ugu jira diskuurada iyo waxyaalaha imikadan xitaa ugu dambeeyay ee dadku ay dawladdu ka hadlaan masjidka dhisidiisa waxaan ku magacaabi lahayn albuna tahtiya amba infrastructure-kii iyo waxyaalihii loo baahnaa oo dhan dadkii uu walaaleeyay waxaan kusoo dhixi karnaa solidarity-gii iyo walaalnimadii iyo wixii oo dhan baan u turjumi lahayn wafiiqadiina waa dawlatul qaanuun eetaad durwaa weeyaan waa dawlatul qaanuun tii u dambaysa saddexdii arrimoodna waxa weyn waa atawciya sensibilisation waxaan la yiraahday iyo kaalinta weyn ka ciyaara in badan sheekh waxaad ka hadashaa waqtiga iyo ka faa'iideysigiisa oo nuxurka xalaqadeennan ahaa bal arintaas ayaan doonaynay in aan la wadaajino daawadayaasheena si aan waqtigeenan uga faa'iideysano wax jadiida baad ugu magacaawda ru'yo jadiida waxaan uga jeeda horta aragti jadiidaan soo bandhigay diinta islaamkaan ka soo saarayna kama soo saarayna gaal iyo meel kama keenno qur-aankeenna iyo sunnaheena yaa asal u ah waqtiga san uga faa'iideysan lahayn ayaantii aad sheegayseen masjidka aan ka jeeday waxaan dadka ku yidhi war fikradda markaa inii soo bandhigo amba qaata amba diida laakiin faa'iido weyn bay nagu jirta iska qaata saan u arkayo weeyaan waxaan markaa aan leeyahay marka ugu horeysa dadka bini'aadamka marka fikrad loo soo bandhigo waxay u kala baxaan saddex qole u kala baxaan waa halisna inaan saddexdaa qolo fahnoon kee noqonaana aan isweydiino waa laga maarmaan waa wax kasta oo jadiida markaad adiga doonaysid marka la maqlo oo fikrad cusubaba dadku saddex u kala baxayaan wad garatay ma qolo waxaa la dhahdaa alistislaamiyuun الذائبون في المشاريع maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay wixii la sheegaba way isku dhibaan kii hadlaba way raacaan yajruuna waraa kulli naa'iq dameerna raacday waa al-immaciyuun nabigu wuxuu yidhi immaca buu alayhi salaam markaasi kuwaasi iyaka waxaan leenahay maanta dee hadalka waa inay fiirsadaan hadduu sax yahay hadduu qalad yahay macno kale ma sheego marka dadka qol waa qoladaas qolada labaad waa qolo iyaduna maaragtay koonada kontareerkoogiya waa ka soo horjeedaan waxaa dhahdaa alraafiduuna dawman waabadan likulli jadiid alraafiduun way diidan yihiin ma rabaan may jiri jirtay beri hore may waa beende waa qalad ma qaadanayno kuwaasi waa al-aabaa'iyuun baa dhahdaa tujiro ma loo soo joogay kornaanitaa arrin aan loo soo joogin waxa aabiya kama soo gaarin oon hore loo oran ma socoto qur-aankuna wuxuu yaqaanaa al-aabaa'iyuun waad fahamtay soo maha qolada saddexaad aan rabno waxa weeyaan waa qolada uu qur-aanku sibuu u macnayahay laakiin waxaan uga bixinaa almuqarbiluun muqarbilku waa maxay waa hufaha hadal kastoo la yidhaahdaba wuu hufayaa marka maaragtay shaandhaa samaynaysaa shaandhadu maxay samaysaa wixii saxi reebtaa wixii qaladana way ka daadaysaa qushaashka aan loo baahan loon baa daata marka waxaa loo baahan yahay wax kastood maqashid inaad ridiqdid walidaalika culummadu waxay dhahdaan qofka muslimkii maskaxdiisu waa inay noqoto kalmacidati alhaadima caloosha wax ridqaysa ee waxa wanaagsanna jirka gelinaysa vitamin iyo protein u kala qaybinaysa wixii xunna uu halka dambe ka dhigayo kanifa ku ridayo yajib anta aqlaawna soo noqdo wixii xunna uu soo tufo wixii fiicanna uu madax gashado ilaahay kuwa saddexaad buu ammaano wuxuu yidhi alladhiina fabashir cibaadi alladhiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ilahay wuxuu yidhi nabi maxamedow addoommahayga u bishaaree addoomahan ilaahay waayo waa kuwa hadalka markay maqlaan kiisa wanaagsan raaca markaa saddexdaa dadku iyay u kala baxayaan markaa ru'yadan aan soo bandhigaya waxaan rabaa inaan sidaa loo kala ego la noqon kuwa dam ka wada siinayn la noqon kuwa wadadideen la noqon kuwa wax hufaya inay mujtamaciinu ay noqdaan ay bislaadaan baan rabaa ay hadalka u fiirsadaan aniguna runtii waxaa maalintaas sheekh cabdiraxmaan kusoo dabadari lahaa inuu qofku wax kasti oo ka hor yimaada adduunkan imika globalisation iyo mondialisation baan ku jirnaa waa adduunyo albaabadeedii oo dhan ay kala furteen wax kasti oo ku yimaadaba inuu sidaad eegtay caqli aad ku magacowday alhaadim caqligii wax
calalinayay ee waxa wanaagsan ee borotiinka iyo fitamiinkana qaadanayay wixii kalena iska tuurayay in uu noqdo amba siday ikhwaanna al-yamaniyiin ay yiraahdeen khudi thamara wa khalli al-uuda lin-nar bay yiraahdeen yani mudahana qaado wixii kale xaabee ka soo hadhana dabka iskaga wadaabay yiraahdeen bal waxa jeclaan shaqaa inaan guda galno waqtigan hadaba qiimaha weyn leh sida looga faa'iideysanayo ayaad soo koobtay inaad bal noo tilmaantid baan doonayay horta dadka bini aadamkii markay waqtiga hor yimaadeen waqtigu waa maxay iminka matalan maanta waxaan joognaa maalin waxaa noo bilaabay waa cusub sanad cusub baa bilaabmay 1425 dadkiinu ma fiirsanayaan waxaa laga yaabaa aniga dadka ila da'da iyo kuwa iga weynba 25 sano noolaayeen qarniga ka mid ah bimacnaa waxaan liqnay maanta rubcu qarni rubci iyaan dam ka soo siinay marka rubcu qarni waa maxay waa wax weyn marka waqtiga dadku markay surtaagaan waxa u kala baxaan saddex qolo iyakuna soo saddex qolo kuma sheegino dadka ay kala yihiin haddana marka wax ku soo jiidaba arintana saddex qolo dadku kala baxaan markay waqtiga hor yimaadiinba saddex qolo u kala baxaan qolo waa qolo yaablo waxay ku leeyihiin waqtigan iyo taagan iyo socdiyo uu cadibo waxay ka sheekayaan baasiga almaadawiyuun badala waa maadawiyiin maadawiga waa maxay shalay abayaasheen khatar bay ahaayeen geesiin bay ahaayeen diinta ku fiicnaayeen dhaqan ku fiicnaayeen si isu guursan jireen waxaan bay ka sheekayaan sida maartay marka la iskhilaafo loo kala xalin jiray hadaad iminka ka bilowdeed adduunka islaamka taariikh islaam fiican baa laga sheekeynaya hadaad u imatid matalan dadkan geeska afrika degan qolba Soomaalidu taariikh fiican bay ka sheekeynayaan anfartu taariikh fiican sheekeyn oromo taariikh oo horade iyo ka sheekeynayaan laakiin maanta maxay tiyaada kala waxa ma hayaan marka kuwa maxay dhahdaa waa maadawiyiin maadawiyiintu wali waxay u sii kala baxaan laba qolo kuwa maadawiyiintu ubaadul maadi maadiga aabudaba oo ilaahay u haysataba oo qadiska maadiga ragi hore hadallo way ku joojinayaan way xidhan hadal ijtihaadkii wax ka soo xidhan halka bay ku dhameynayaan qolo labaadina wax weeyaan maadigiiba intay u noqdeen maxaa dhahdaa asiir ay intuu xidhay iyo doonayaan inay taariikhda maanta ku xukumaan wixii shalay wixii jiri jiray hadduu maanta jiri waayo waxa ma soconayso qoladaa warka waa qolo labaad waxaa la dhahdaa cushaaqu laxda kuwani maxaa dhahdaa daqiiqada iminka aan joogo unbaan caabudi saas ku leeyahay ya nin carabaa gabiyo wuxuu yidhi maa madaa faat war wixii tagay walmu'ammalu hayb waxa soo socdana waa hayb u maqan yahay ilaahay baa garanaya walaka asaacatu alatii anta fiiha waxaa shaans u leedahay saacadda aad ku dhex jirtide wardaaqu cuno acabo radiqo saano laangaashkeena radiq bada ku dhammato ha ku jijibiyo maxaa ku cadibaya saas bay koranayaan marka kuwaasina waxa dhada cushaaqu laxda daqiiqada minidka secondka ayaa laga sheekayaa dad badan baa waxaa faafiyey ninkii Jean Duhel oo ee Mareykanka haye falsafada manfaca keenay inuu qofku antiriskiisa baadho ninkii keenay baa faafiyey waxaa faafiyey ninkii wujuudiyada keenay Sartre Jean Paul Sartre ninkii oo ninkaas baa isna ka qayb galay inuu faafiyo maxaa la faafinayaa waxaa lagu leeyahay la tara bacda alxayaati shamsan wala qamar ya qadceedi dayax ma jiraan adduunyada ka faa'iideyso maanta joogtaa barimaada fataana joogaysid waa maya marka kuwaasina waxay arkayaan laxdada uu joogo كل ندون أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا وصور لاصتين وصور رزقين بين وكسو جيبسين قلنا بعد قلنا صدحات بجرتو حال هذا يكن المستقبليون واحد هذا واحد إعلان بريتولي وحكوليه يا أخي خلونا من أمس شالي نجدها ما أنت نجدها ما أنت وخدار هذا واقع وخدار كمان شيء كانوا عندها سك قبلنا بريتولي أنا وان دنته أبغى كانوا فكرة يقولي أنا محانا هاي بيقولي واحد تهم والما هو نقول وغلط هو قال موت أنا محانا هاي إسلام تسكرنا اللي بدينا معها وحو أصل هو عيالك أصل كونه هذا سجى أما أصل هو عيالك هو بري وين بري كفكرنا مركا تتكاسنا هذا مستقبليين ترى هذا مركا صدق هذا قلبا مرة بنا نقول ربنا قيب أفراد يا ربنا قيبت أفراد بمركا أنا نقول sida ay waqtiga uga faa'iideysanayaan iyaan galeen qaybta afraad waa qaybtu tilmaamo badan bay leeyahay arinta ugu horeysa ay qaybta afraad leedahay waxa weeyaan horta waqtiga way ka faa'iideystaan maxay sameeyaan waxa ay marka in Sheekh Cabdiraxmaan intaanan ugalma tilmaamooga horta qaybtan kuwii hore qayb iyo waxaad ku tilmaantay magaca gooniyaan siinay waxaan niri kuwa almaadi maadawiyun
kuwa cushaaqulaxda iyo almustaqbaliyun kuwa waqtiga xagga horena neegna leh kuwan iyagu magac yaro gaara may leeyihiin definition ama tacriif yar waxaa jira maaragtay waxaan aad uga faa'iidaystay sheekh la dhahdo cabdilfataax abu quda raximahullah caalim suuri wahaa xadiisa ku takhasusay iyo sheekh balaali la yidhaahdo u dhashay dalka kuwait waxay u bixiyeen almustathmiruun min awqaatihim kuwa waqtiyashooda maxaa la dhahdaa maalgashanay waqtigay maalgelinaya kuwaasi markaasi ambaba kuwa waqtigooga idaareynaya odhan karna waqtigooga maxaa la dhahdaa maamulaya gacanta ku haya waqtigooga ay ka faa'iidaysanayaan marka kuwaasi sifaad bay leeyihiin lagu garto oo ay kaga duwan yihiin saddexdii aan tilmaamnayba sifada ugu horeysa waxa weeyaan alistifaadatu alquswa min alwaqti yaa akhi waqtigan iyay uga faa'iidaystaan sida ugu dambaysa waqtigu iminka matalan dowladda jabaanka soo qaado dowladda jabaanku waa dad waxayna haysataa matiyeer la yaqaano meel la way degan tahay soo maha dowladda maraykanka soo qaado waa dad la yaqaano dhulna way degan tahay soo maha yurub soo qaado waa dad la yaqaano dhulna way degan yihin soo maha annakana na soo qaado adduunka islaamka annaku aan maanta aan waxaan ka sheekayna na soo qaado dad baan nahay dhulna waan degannahay xoolana waan haysanaa soo maha maxaan ku kala duwannahay saddexdeenaa qolo afarteenaa qolo maxaan ku kala duwannahay diraasaa la sameeyey bal diraasada waxay ku leedahay dhegeyso diraasada waxay ku leedahay dadka jabaanku 8 saacadood ee loogu talagalay inay shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan 7 saac iyo badh waxay khasaariyaan nus saac khasaariyaan u fiirso maraykanka ku xiga maraykanku 8 saac ee loogu talagalay in la shaqeeyo wuxuu shaqeeyaa 6 saacadood 2 saacadood baa ka xumaata 2 saacadood ka xumaata yurub baan marnaa yurubtu marka la isku keeno waxay shaqeeyaan 5 saacadood maxaa ka khasaara 3 baa kala khasaara adduunka islaamka loo yimid khaliijka la qaatay dawladda khaliijka petrol kale ee gacan kale dhacdo waxaa la ogaaday inay shaqeeyaan 25 minute 25 minute imsa saacadood baa khasaartay waxaa ka khasaar 7 saacadood iyo 5 minute sax yaa khasaartay marka anigu waxaan isweydiiyey su'aal haddii Djibouti diraasad lagu sameeyo imsa khasaartay inta kulli u dhawaan laga yaabo anigu waxaan idhi zero marka laga reebo intii telefoonada intii shaaha yar iyo kaafeegan qabanayna intii soo habsaamayna intaan horay uga baxsanayna wixii dhan marka la isu geeyo intii aan mirqaasanin ku dar baqaaq waa galabtii shar maya intii aan unaga sii baxayna ku dar intii aan jaadka doon waxaan ku dar waxaan shaqayn doonaa hal saacad wax ka yar baa shaqayna kulli marka istifaadatu alquswa min alwaqti bay muslimiintu sameeyaan maxaa u keenay inay muslimiintu waqtiga ay ka faa'iideystaan muslimiin in istismaar maxaa keenay quraanka u fiirso kitaabkeena quraankii waqtiga wuxuu inaga tusay 3 meelood waa marka ugu horeysa ilaahina abuuray subhanahu wa ta'ala baa waqtiga ku dhaartay waqtigii buu noo qaybiyay mufradaad buu ka say waqtigii oo isku dhex jira lagu midhaan horta waqtigii oo qaybta waqtiga maxaa ugu horeeya marka muslimka la sheegayo waaga barigiisa oo goorma ah waxa ugu horeeya waqtiga fajriga salaad subax la tukanayo ilaahay wuxuu yiri fajri wa layaalin ashar ku dhaartay waqtiga waxa ku xiga waqtiga cadceedu soo baxdo barqada ma waqtiga cadceedu soo baxday bilaamayso wasubhu ida tanaffasa amba asfara waa lagu dhaartay ma waa arintii labaad arinta sax waxa lagu dhaartay barqadii waqtiga ku sii xigtay wadduha wallayli ida saja waa lagu dhaartay marasa haddana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhaartay dharaartii oo dhan wan nahaari ida tajalla habeenkii oo dhan buu ku dhaartay wallayli ida yakhsha waxa waqtiga maxaa lagu dhaarnay limaada culimada tafsiirku waxay ku leeyihiin ilaahay iyo bini aadanku waa laba bini aadanku ilaahay xaq uma siin inay ku dhaartaan ilaa ilaahay maahine laakiinse waxay dhahaan ilaahay wuxuu ku dhaartaa wuxuu doono laakiin waxa uu ku dhaartaa wax weyn wuxuuna uga jeedaa inay dadku u jeestaan waxan war waxa ilaahay ku dhaartay cadiim wuxuu ilaahay uga jeeday in la yiraahdo arintaas waa arinta koobaad dhinacii labaad buu ilaahay soo noqdo ma tii koobaad ku jiray ilaahay waqtigii haddana isku jira ayuu ku dhaarto wal casri buu culimadu waxay dhahaan casrigu waa laba macno leeyahay salaada casr iyo waxay dhahdaan arinta labaad casriga zamankii oo dhan min maalintuu ilaahay dhulka abuuray ilaa maalintuu dhimanayo marka arinta koobaadi waa taas waay arinta labaad ee quraanku ahamiyada waqtiga siiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tiriyay wax ajiiba ilaahay wuxuu jalla jalaaluhu war bini aadankii buu nala hadlayaa wasakhara buu ilaahay wasakhara wuxuu inii sakhiray lakum inika ash-shamsa wal qamara ad'aad iyo dayax daa'ibayn istabasocda maxaa ka dhalanaya
adceedda iyo dayixii wasakhara lakum alleyla waannahaara labadii waqti ee ka dhartay ayuu ilaahay tilmaamay maxaa ka dhanaya labadii haddana waaataakum min kulli maa sa'altumuuh wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicma markaabuu ilahay ku taala nicmad weliba aan la koobi karayn waqtigii lanna waxa la sheegaa waqti waxa la soo tiriyey waa adceed iminka adceeddan dhan ee dharaartii habeenka samaynaysahay dhulka waxay ka weyn tahay milyoon goor dhulkuna adii misuu kaa wen yahay malaayiin goor buu kaa wen yahay adigaabay kuu shaqaynaysaa marka lagu le waqtiga ku samaynaysaa markaas waa inaad arrintan weyne lagu sameeyey aada eegtid weyaan marka arrintaas waa arrinta labaad weyaan arrin saddexaad baa jirto qur-aanka inoo keentay inuu waqtiga inoo jeediyo waa arrinta cajiibka ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ka warramay wahuwa aladii jacala alleyla waannahaara ilaahay muxuu abuuray habeeniyo iyo dharaar muxuu abuuray limaada su-aal baan isweydiinana khilfatan khilfad waa maxay isdaba socod limaada haddana muxuu isku daba socsiiyey wuxuu yihi liman araada an yadakara ruuxa doonaya inuu taariikhda barto an yadakara ila xasuusta wax kaa horeeye waa istiwaar akhrintii wey waa maadigii wey aw araada shukuuran amba doonaya inuu ka faa'iidaysto waqtigiisa oo ilahay uma hadnoqo shukuurku waa maxay shukuurkan waxaan naqaan alxamdulilah maaha waa kii laga yidhi ree aali daa'uud icmaluu aala daa'uuda shukraa shaqeeya ininkoo ilahay mahadnaqaya markaa shukri qofkii doonaya inuu waqtiga ka faa'iidaysto oo ilahay uma hadnoqo waa la siiyey waqtigu ka faa'iidaysto oo ilahay uma hadnoqo laakiin qofka gacmaha laabaya ee lugaha laabaya waqtigu uu baasa uu soconayo ee dilaya kaasi maaha markaa saddexdaa aayadood kaa ilaahay ku dhaartay iyo taa labaad ee nicmadda ku tilmaamtay iyo taa saddexaad ee shukriga inaga doonaysa nicmad baa la sheegee waxay muslimiinta u keentay amba dadkii caqliga lahaa u keentay inay waqtiga ku soo jeestaan ay ka faa'idaystaan ay weliba uga faa'idaystaan si quswa ah si ayna waqtigooga aad iyo aad u weyno exaambalo badan baa inoo socota marka aan geli doono waqtiyaasha sida looga faa'iidaysto matalan waa tii koobaad taas waa tii koobaad arrintaa un baan intaanad ka bixin ku yeera dabadel lahaa sheekh cabdiraxmaan xadiis cajab badan oo igu soo xaadiraya xilligaa qofka muslimkiisa si guud ahaan wuxuu aaminsan yahay aakhirada iyo qiyaamo in la soo saarayo yaan aaminsanahay waa kii 4 su'aalood baa dee la isweydiinayay uu noo soo socdaa uu noo soo socdaa fiican buu inoogu jiraa xadiiskaasi ficlan dhaawici gaadhay waaya ku sii socdo waxaad nooga warantaa sheekh haddaba waqtiga qiimaha intaa la eg laga faa'iidaysanayo sida ugu qurux badan ee loo baahan yahay in looga faa'iidaysto horta waxaa jira qofka bini aadamkii waxaa jira wax dhacda berigii hore waxa la oran jiray waqtiga faraaqa qofka muslimkii waa inuu buuxiyo faraaq baa jira waa faraq mandiqad faraaqa waxa la ogaaday wax faraaq la dhahdaa inuu jirin ma maxay faraaq waa faraaq jira qof waxba hayn marna ma jiro amba adaa waxaya amba waxba laga qabanaya sadarada culimadu kitaabka talbiisu ibliis ku dadka u waalo kitaab uu ka qoray sheekh wuxuu ku tilmaamay waxa kamida wuxuu yiri man lam yushqil nafsahu bi ta'ati rabbih shaqalathu nafsuhu bi ma'siyati rabbih Allahu akbar qofka naftiisa ku mashquulin waaya inuu ilaahay adeeco naftiisu waxay ku mashquulisaa inuu ilaahay caasiyo nafta ku mashquulin wala wax kumaya nafta shaytaan kala kumaya marka qofku naftiisa uu ka faa'iideeyo marka faraaq ma jiro wax dhacdo markii dambe culimadii waxay dhahdeen war faraaq ma jiro waxa jira wax dhacdo idaaratul waqti wa in waqtiga la maamulo mushkiladeena haysata waqti maamulka inaga xun waa mas'alad imika aan culimada qaar u qoran waa laga dalacay taymika ma jiro wax idaaratul waqti waxa jira al-istismar bil waqti in waqtiga la maal gashado limaada culimadu waxay leeyihiin falaasifadii greeg waxay dhahdeen alwaqtu min adahab waqtigu waa dahab rag baa radiyay waxa dhamay waqtigu dahab maaha min adahab ma dahab ka mid maaha alwaqtu huwa adahab dahabka la doodoonayo waa maxay waa waqtiga sheekh islaam akili waxaasi waa nadra maadiya waa materialist maadada caabudaysan alwaqtu huwa alxayaat waqtigu waa nolosha qofka bini aadamka waqtigiisa dilaya noloshiisa buu dilaya waa inaad u fahanno marka alwaqtu wal hayat sanad baa dhamaaday imika sanad ka dhamaaday waa rasiidkaagii buu galay aakhiradaadii buu tagay taariikhdaadii buu galay waa inaad dib u akhridid maxaad faa'iidaysatay maxaad faa'iideen لأن إلهي بقول ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر waxaa looga warramay qofka bini aadamka wuxuu hormariyo shaqaystay iyo wuxuu shaqayn lahaa una shaqaysan subxaanallahi alcadiim war waxa wad qaban kari lahayd maxaad qowmiyada lagu waran ala cali dee imika garo inaad wax qaban karaysid waad fahamtay ma marka istismaarku waa kaa haddaba istismaarkaas nebigu wuxuu ku soo koobay xadiis cajiib oo raa'ic oo imaam xaakim uu werinayo wuxuu yidhi nebigu iqtanim khamsan qabla khamsin waa cajiiba motahay shan arrimood intayna ku iman shan arrimood gal maxaad u sugi shan arrimood galba
اغتنم بقول اغتنم ومبادره وهراء قل ما حدا شتا شيء حياتك قبل موتك انت نوشهي انت دمن قل سو نوشهي ما قل شبابك قبل هرمك انت جنتهايو دليرادو بوخدو حيويدادا في مارتي ان جيركاغو او نول yahay قال inaad maartay tadqobin waa arinta lagu daray arrinta waxa la faraaqika qabla shuqlik waqti ibaad haysataa intaad waqti haysato mashquul aad noqon gal oo buuxi waqtiga ka faa'iideyso iyo la wari caafimaadkaaga intaad bukoon gal qabla suqmika iyo la islaam waxa la wari qinaaka qabla faqrika inta aad baahin intaad baahnayn gal hawl qabo marka shanta kulli way imanay shantanaad haysatid ka faa'iideyso marka iqtinaam marka arinta maxaa ka soo horjeeda iqtinaam al-faraaqa qatl al-waqt waa ka soo horjeeda dad bad maqlaysaa ima kula waqtigan dilaya مثلا waqtigan isku dhaafinaya ninka maanta oo dhan example baan ku siinaya labadii meel fadhiistay barjo u fadhiistay مثلا waqtigeena inay xisaabin u baahan oo ka sara kacay 8 suudadu la fadhiyay iska sheekaysanayeen 8diina turub u fadhiistay ee ka sara kacay 3 ama 4 habeenimo ee 4tiina seexday ee 12kii soo sara kacay geedkii jaadka uu qaatay fadhiistay ninka waqtigiisa ka horan waa qaatil waqtigii buu dilay laakiin waqti ma dilayo isaga is dilay waa crime wuxuu isagii baa is dilaya marka iqtinaam al-faraaq balo inaa faraaqa ka buuxino qofka marka waqtigiisa qiimeynaya waa ka weeyaan arinta saddexaad dadka muslimiintu ee waqtigooda ka mura keenaya ay lahaayeen waxa weeyaan al-musaara'a ma'a zaman quraanka mid ku jirta meel kale ku jirta ma jirto ninka maartay qoray kitaabkii u bixiyay saacada 25aad rayur maanta saacad 5 doonayaan dadkii shaqaysanayay saacad ziyaada ay doonayaan oo 5 annaguna 4 saac culays lagu ah ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka bini aadamka wuxuu inoogu qaybiyay marka ayadan ka dhaqaano inay yihiin 4 qolo ayadan ka dhaqaan waa teesha abdira waxaan dhacayna yusaari'una fil khayraat ha amba wasari'u fil khayraat amba wasabiqu ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin ayadaha quraanka dhan فليتنافس المتنافسون وأيضا عجيبة وقت وأيضا وضع الشيء أرد يتنافس وبرتم كوي برتمية وبرتمية جنة له برتمية ما هو حاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد وحالها الله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم بعد مركا علوم احنا تدخلوا أفروا أيضا ما كان رقاقه قار وقتك كوري من اتجاه معاكس وقتك ما بصعد بأكتر ياك وتانية صعدوا إيجا وحكوا كليه إنها لله ما بدنا ما نسمع مالته وتفجعيسه سووا دمانة مالته يرتاح يا أخي ما بدنا ما نسمع هبينكم ما بدنا ما نيابا كوا واحد هذا يمشون مارتي عكس العقرب صعدوا لك صعد يكوري منها ورضا سي يكو ما صعدان بقى واقفون بتاعين وقت قدافة يا قول ما بجرت واحد هذا المتثاقلون لقطي يرقاضيان وكو إلهي تلامي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى صلاة مركا وكعان يكو عجسي كحيان صلاة دو اكزامبل وحوتها خير ودن وحولي قبنيان لوغها جيديان بس ما وحكا المار وعاجزين وتثاقل وعلوسيهين كوا صدحات باجر كوا صدحات وحويان وكوا يكو شقينيا سي معتدله يعني سي دبحاد او شقينيا شقدي waxay qabanayaan waxa loo yaqaano waxay yiraahdaan adaa ul waajib yahay waajib ka soo baxa maxaa ku cadibay koranayaan maxaa madaxaaga wareerinaya maxaa ciyaalka maxaa isku wareerisa horta waajib ka soo baxa saddexda qolo quraanku midna kamaraali ah qolo umbraali ka yahay waa qolada uu bixiyay al-musaarahatu ma'a zaman waqtiga la baratamaya walidaalika markaad eegtid aayada quraanka waxaad garan kartaa inay dadkii muslimiintu ku sameeyeen xadaaradii ugu weyneyd 50 sano dabadeed nabiga waxaa soo baxday civilisation mutawaazina xadaarad buuxda isku dheelitiran Malik bin Nabi rahimahullah wuxuu yiri si xadaarad loo dhiso saddex arrimood oo qora loo baahan yahay faqad in la helo waxa loo baahan yahay in la helo qof bini aadana civilisation si loo sameeyo waa in qof bini aadan la helo insaan waa in la helo insaan de maaha hurdo jiifama insaan la sameeyay ولا برتمي وقت انك كادح الى ربك وكادح كادح وشقيسانيا وان لا هلو دول بيئو انفيرونيما غرغاريسا البحنمدا oo maartay wanaagsan oo maartay abuuri karta xadaarad iyo waqti waa in la helo qofku inuu waqti haysto hadaba su'aasha baa la soo waxa qof bila waqti jira dadkoo dhan afar saacadood haysan
maaha sumalyoonitaa uma jeedo wuxuu u jeedaa waqtiga saan uga faa'iidaysan waa ayada qur-aanka keentay almusaaracatu maca zaman inaan zamanka la baratanno annaka iyo waqtigii inaan baratanku wada jirno waa arrinta saddexaad weeyaan arrinta afaraad waxa weeyaan waqtiga laga faa'iidaysan karo waxa weeyaan inaan samayno waxa dhahdo alictibaar bimuruuri alayaam ayaamaha ku maraya inaad ka faa'iidaysatid ayaan walba waxay wadataa wixiga dad baa ayaanta u haysta uun sabti martay amba axad martay amba maanta oo kale isniintana maraysa maaha saas ayaantu waxay wadataa wixiga ayaan walbaba waxbaa jadiid ah walidaalika muxuu yidhi axadu saalixiin wuxuu yidhi xasan albasri odhan jiray waa hadallada cilmiga weyaan ninkaa waxaa la yidhahda hadalladiis waxa u ekaayeen hadallada ambiyada iyo u ekaayeen xataa kalimaadkiisa axaadiis baa lamada qaar baa koranaya yaquulu sala allah alay salam xadiis ba u haystaan ma xadiis laakiin xasan albasri baa yidhi xasan albasri wuxuu yidhi maa min yawmin yanshaqu fajruhu ila wayunaadi eeg waa cilmi dhan ayaantii buu ka hadlisiinayaa ayaantii buu ka dhigay wax hadlaysaa wuxuu yidhi ma jirta maalin waageegu uu baryayo ilaa way dhawaaqdaa maxay tidhahdaa ya bna aadam ina aadano ana fajrun jadiid anugu wax cusub baan ahay wa calaa camalika shahiid hawsha aad qabanaysidna marag baan ka ahay iyo markhaati baan ka ahay fatazawad mina iga sahay qaado waxay dhigo rasiid dhigo fa inii in amdaytu haddaan socdo laa acuudu abadan ilaa yowmi alqiyaama ilaa iyo yowmi alqiyaamaha ma soo noqonayo marka halkaasi waxay ina xasuusinaysaa waqtigu saddex sifo uu leeyahay oo muhiim ah oo dadkeenu inay u fiirsadaan u baahan yihiin waqtigu sifada koowaad uu leeyahay waa maxay surcatu linqidaa hore u dhammaadaa hore u dhammaadaa dadna uu cadibo waa ka dhaqaaqi laba laakiin runtiisu u dhammaadaa inuu waqtigu hore u dhammaado goormaa la gartaa waxaa la gartaa marka geeridu ku yimato dadkuna ay ku arkayn uu qofka malakulmadu ku dul joogo waqtigaa buu gartaa war waqtigu uu yaraa ilaan muxuu dhahdaa rabbi irjicuun ilaahu fursad unisi iceli lacallii acmalu saalixan fiima taraktu inaan shaqeeyaa laga yaabaa ilahay markaa uu gartaa qofku wuxuu kaluu gartaa maalinta yowma alqiyaama marka aakhira la keeno ilaahay subxaanahu watacala wuxuu ihi kaannahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha maalinta yowma alqiyaama marka la hor keeno waxay moodayaan inay ilaahay uu adduunyada joojiyeba waqti yaroo barqada ah amba waqti yaroo galbeed bas inta kaloo dhan way iloobayaan 60kii sano iyo wixii oo dhan iloobayaan lianna waa surcatu inqidaa hore buu dhammaaday iminka haddaad u yeedhid oday 60 sana 70 jira oo tiraahdo yaa sheekh kawana waqtiga kusoo dhaafay habeen mamnuucii buu qoran ولذلك نيكي عرب كيجي وكيل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب يا يسوع علي دليل نمدي وحاول نقول ملا واحد داود يقطرته يقول سميس يا نقول ملا وأرنا وين وأرنا رنتي شيخ عبد الرحمن مركا قف وين هذا واحد ويرقبتي أنا بابور فوليود ماشي ويربن ليس واحد رقبتي دعوين كان أنا جوز أكتاجا يكون يرهدين الله إلهي عافماتك كسي الله عمرك هاجر دايرة بيرهدين وحضر كيس سوسي إيه خطرت هاي سربت هاي إنه الدراهم هي وقت يجيسي وكسوكو فعلا كوارن عجيبة ويان دعاء حتى وحكى القرآن ماي إلهي عمرك هاكور دايرة وها وكاس وأريتها أن صفة كوادي وسرعة الانقضاء صفة الله بعدين وحويان وحي تجاي ما مضى منه لا يعود أبدا وصفة عجوته وحي كل هدي تهضو كلها في وقته ما شاء الله أو ما شاء الله ما تو ولذلك محور شيخوري فإني لن أعود إلى يوم القيامة لكن يوم القيامة وصلنا عليها يوم القيامة وحال لقوا ورمي علمي ولم يكن قاري سنتفيك ما وحال لقوا ورمي أيضا القرآن كزلزلة كجرت إذا زلزلت إلى يومئذ تحدث أخبارها وحي كجري بك ورمي لكم مالتها أو ورمي وحوي أنا مكسو هل كان ما فدينا علميا waxaa la ogaaday jirkeena marka meesha ka sara kacno inaan harayno harkeeni ba haraya marka harkeena harayo yawmal qiyaamaha oo soo mari doono anagoo soo sheekaysanana ayaan soo mari doono aayadan iyo barnaamijkan diinta iyo nolosha ka sheekayna ayaa saa inoo soo hormari doonta way inaan anfici doonta ayaan kaloo meel kala fadhina way naga murugaysiin doonta ilaahay murugada naga yaray maalintaas marka yawma idin tuhaddithu akhbaara hadaas maalintaan bay soo noqon marka sheekhu wuxuu yiri fa inni lan a'uuda ila yawm alqiyaamah way soo noqonay laakiin yawm alqiyaamah kor ma soo noqonayso maalintaasi ku dhaaftay markaasi arintaasi labaad bay leedahay maxaan ku dhahdaa in waqtigu uu leeyahay waa soo noqosho la'aan waa soo noqosho la'aan maalintii loogu talagalay mooyaane ma soo noqonayso waqtiga inay dajinay ma garan marka waxaan galnaa arintii saddexaad afraad tanziim alwaqti arinta afraad ee maxaan ku dhahdaa aan muslimku qofka binaadamka waqtiga uu istismaarayo uu maalgashanayo waxaa ka mid ah inuu waqtigiisa organisation u sameeyo iyo planification تنظيم وقتك إلى النمسي
waqtigaaga inaan nidaamiyo maxaa igu qasbaya maxaa igu cadibaya waqtiga inaan nidaamiyo waxaa kugu cadibaya waqtiga inaan nidaamisid horta xadiiskii aad sheegtaa kugu cadibaya nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maalinta yowma alqiyaamaha qofka bini aadanka ah maxsharka kama dhaqaaqaya ilaa 4 su'aalood uu ka jawaabo maxsharkuna de wama adraaka maxaa de intuu la egyahay maxsharka ilaahay ilaahay yaro maanta liin yarood gashido konton qof ka horeeyaan iyaad dhibaysataay meel de khalqigii oo dhan isku yimaadeen ilaahagi waa ku hor joogaba ها فهم إلهي وكور جوجا عذابتي أنا كم بيت الله النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما أنت يوم القيامة قفك بني آدم كميدتي صدي محو أركي عمل كيسي بيع صدي عمل كيسي قضال بضي عمل كيسي هرتي صدي عذابتي وأركي أين المفر أكو بحسنا يا هل كاو جوجو وحلو لي كم دقائق أفر بالجوات ورتب بحنسها سؤال شو قول عن عمرك فيما أفنيت عمري إلهي كسيي سبحانه وتعالى حد كل ما يصير ما حد كل ما يصير فناء ما حد كل شيء وفناء وبدل ما حد كل بقى أو كلي هدي لإنه ويدين لها يعني تكبر بحينين بوح لأنت السنة أدنولي ما كان لغو سوق هذا لغو سوق هذا سنة كي لبيه تون بلاد غادي لبيه تون كبلاد لما لمايو ما الأسبوع دي لما لمايو ما لميه إلا ساعة دايو ساعة دي إلا دقيقة دايو دقيقة دي إلا الجورسيو أريد الله بروحيان عمري جيب على قصر حصاري عمري يقول لي مرحلة ذهبية عن شبابك فيما أبليت دلني يراني ما هذه ما حد كنت بختيس وكنت باليسي حد أضيك قريت ما حد قريت أما إسلام قريت ما حد صوص ميسي ما حد أطرت النفط هذا ما حد أطرت الدين هذا ما حد أطرت أمض هذا ما حد أطرت الدلك هذا ما حد أطرت وحاس أرم الويدين آخرها ما حد لقتي إلهي رسم حد لقتي ما حد كل ما يسوون بار يبواد يو خمر يعيار يو مارة الدانس يوم ما تقول ما يصير مسوي wax kala gashay su'aasha saddexaad waxa weeyaan aan maalik maalkan dadku ay haystaan min ayna tasabtay ka soo qootay fiima anfaqta halka dhigtay waa su'aal halis amootay marka waxaan jecelahay maalin aan maalka qoratidood ayaan dhowdoon quraanka akhrinayo maal aan meel badan ka akhriyo maal war dadku maalka ma fahmaanaan mar maalullaahi mar maalukum mar amwaaluhum waxaan la wada sheegayo waa fikrad dhaqaale weyn ma la fahmo marka maalkana halkee ilaa halkee kulli maalin ma ku soo qaadan arinta afraad ee ugu dambaysa wax weeyaan cilmigii lagu baray maxaa kaga camal fashay markaasi xadiiskaas wuxuu ina tusay qofka muslimkii in uu waqtigiisa uu hadaba tandiimiyo dhinaca kale islaamku hadana waqtiga inaan tandiiminayna inaga tusay taaba maanu sheekh Cabdiraxmaan waxaan oran lahaa maanta adduunku marka uu waqtiga iyo hagaajintiisa iyo ka faa'iideysigiisa laga warramayo iyagu waxay fahmeen oo kaliya qiimaha uu u leeyahay inta ay joogaan ee qofka muslimka inta uu badhaafsan yahay oo wada waa arrin kaba weynba waaye arinta labaad waxa weeyaan waqtiga ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga banoo qaybiba si aan aqligiin u nidaamsanaado ninka la oran jiray maxaa la oran jiray ninkii qoray al-islaam ala muftariq turuq amba qoray ad-dariiq ila makka maxamed asad leopold fais ha ninkaasi markuu islaamay wuxuu yiri bariga anu marka yurub oo kale markuu qofku ballan la qabsanayo waxa la oranay saacada 13 iyo 13 15 iyo 3 iyo laakiin muslimiintu waxay dhadan buuray salaada subax dabadeed mubasharatan waxaan ogaaday buuri inuu ilaahayba u organiseeyo nolosha marka muslimiinta waxa uu wuxuu yiri wax inta nolol fiican la siiyay iyana ku dul dhisan nolol kale ka fiican laakiin way garwaayeen buuri فعلا قالوا إياك كيف دون أنا كانوا يقولون محل شن وقت ويله نسميه شنتي وقت محو القرآن قرأ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إيش من هذا الكلام كلام كلام محوي إلهي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء والأرض وعشيا حين تظهرون وقت ياشبه إنه لقى سبحانه وتعالى marka ilaahay wuxuu ku leeyahay salaatu kada waqtiga galabaysataan waqtiga habeenaysataan waqtiyal baa inoo sameeyay shan waqti baa la siiyay waa nooc planification waa loo nidaamiyay walidaalka culimadu waxay oran jireen waxa jira amalu yawm amalu usbuuc amba waxay u bixiyeen barnaamij yawm barnaamijkii maalinta waa shan waqti yaa lagu siiyay barnaamijkii usbuuca jimcaha ku imanaya usbuuc baa ku soo dhaafaa waa lagu joojinaya stop waa istaagaysaa sanadkii baa lagu joojinaya ramadaan baa yimid sanad baa ku soo waa lagu joojinaya عمري يوردن حشكي بالجوسي والجوجية ولذلك إمام النساء رحمه الله كتاب قريب بحي عمل اليوم والليلة قفك مسلم كدراتنا محوقبا هذين كنا محوقبا ابن السني أرض يجيسيبا يمدوه يسوون وحبوك الدروح وقرأ عمل اليوم والليلة بقرأ ابن القيم با يمدوه الكلم الطيب بقرأ وحام بكشكنا يعني كلمة دونك قفك وقت جيس سوق فديسن وحفي عن أجلس ليها إياه الله قرأ
soo waxaad garatay ma marka tandiimka waqtigoo la nidaamiyo oo la organiseeyo iyo loo baahan lana ballanfikeeyo oo laga raad مثلا sidii uu nabigu kaleey salaam xadiiskii uu nooga soo warinay suxuf ibraahim qofka caaqilkii waqtigiisa waa inuu 3 saacadood ka dhigo waa waqtigii oo dhan 3 saacadood ka dhig sidaas maxay tahay yani 3 u kala qaybi waqti ilaahi si waqtina naftaada si waqtina reerkaaga si ma garan riwaayad kale waxa ahayd waqti ilaahi si waqtina reerka si waqtina naftaada gaarkaaga si soo waxaad garatay ma walidaalika culimadu waxay yiraahdaan waqtiga ugu qiimi badani waxa weeyaan waqtigu qofku ilaahina siiyo naftiisana uu siiyo waqtigu naftiisa waqtigu kaliya noqdo saacad waa inuu qofku kale kaliya uu noqdo is xisaabiyo annagu kaliya waa nacna leeyahay waqtiga noo nidaamsaneen arintaas waan ka baxayna waqtiga anu soo koobtay arin kale aan galanaa waxaan galanaa idaalatu al-umri bi umri thani arinta halista wata qofka muslimka ee waqtiga fahmaayay wuxuu ku dadaalaa maaha inuu waqtiga uu nidaamiyo buuxiyo waqtigiisa ka faa'iideysta maaha umrigiisu umri ku daranaya sidoo ugu dheeran waa umrigiisu umri ku daraya waxa aad iga yaabisay ayad quraan ayada quraanka ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala fi surati waxa ku jirtaa in suratul yasin bay ku jirtaa ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa naktubu ma qaddamu wa aatharahum ajib wuxuu ilaahay waxaan qoraynaa oon aakhira ka abaal marinayna wixii ay hormariyeen iyo waxay raad ka tageen raadka waa maxay raadka waxa weeyaan khayr baad qabato waad dhimatay khayrka ayaa qabtay himil baa qabtay raadkaagi baa yaala midkii hibil khayrka qaban jiray baa laga sheekeen mid kalena raad buu ka tago xumaan buu ka tagay alle ilaahay kaas wuxuu xumaan ka tagay idan baa lahayn oo ila taariikhda laga sheekeen marka raad khayr qaba in laga tago weeyaan walidaalika waxa ayada quraanka ku dayday oo cajiib ah ahmed shawqi ninkolonayo masrixa gabi cajiiba mustafa ninkolonayo dhintay markuu dhintay buu qiimiday oo taariikhda masaarida galo cajiib ah wuxuu yiri daqaatu qalbi almar'i qaa'ilatun lahu wa cajiib gabigaas inna alhayata daqaa'iqun wa thawani maxay ka tahay garaaca qalbigu giigta wahay daqaatu garaaca uu qalbiga qofku garaacayo way la hadlaysaa qaa'ilatun lahu waxay ku leedahay waa noloshu waa minido iyo segundo marka maxal farfac linafsika ba'da mawtika dhikraha naftaada sar u qaad marka dhimatay kadib xuskeega sar u qaado fadhikru lil insani umrun thani مثلا marka imika soo qaadatid imaamkii weynaa rahimahullah nawawi loraniya imaam nawawi waa maqashaa malaya wuxuu yahay aabaha madhabka shaafiiciyada wuxuu ku dhintay 45 jir kutubtiisa markii la qaaday ee umrigiisa loo qaybiyay waxay noqotay khariqa min al-khawariq wax aan dhici karin bay noqotay 45 jir sidoo waxaan kutuba u qoray waadiga arkay waxa laga sheekeynay waxa la habeenkii buu qori jiray daraartii buu qori jiray saacad walba buu qori jiray waqti kama halaabeen culimadeena waxa kamid ah ninka ibnu taymiya dhado kale waxa la markuu kaniifka galayo muciidi oo sheekhadeed buu dhibi jiray kitaabku oran jiray akhri oo sare u qaad codka xamaamka inta ku jiraan ku maqlay wuxuu nacayaa saacada waxa ku jiro inuu waqti ka dhaco waxba uu dhageysanaya cilmi uu dhageysanaya saasa u baahnahay markaas idaalatu al-umri bi umrin aakhar kale in lagu dheereeyo waqti badan uma haysano taas baan ka bixi lahaa waxaanu iman lahayn hadda intaas wixii waqti marka aan waqtigan uga faa'iideysano waa inaan iska ilaalino 3 arimoodoo si kooban Sheekh Cabdiraxmaan oo digtoonaan ah ka digtoonaana arinta koobaad waxa weeye inaan waqtiga canaanano سنة عنانا وقتك شيخ ضد وقتك عنانا والله وحنا هي صار وقته ليس لصالح بكله أنا إلى مجرى وقته لصالح الآخر مد بو أركي العقية شعور وقتها أوجاري أنا وقتها يجر جاري واي من علم برتو أركي وقتها علم صورنا لا النبي يقول لا تصب الدهر وقتها عيبيننا وقته وحمقته إمام الشافعي يقول نعيب زماننا والعيب فينا أنك عيبت نطلعي وقتها ما وتكوبات عصير أرنت الله بدينا إلى لنا واحد وقت وفيسنا التصويف كلمة تصويف محي قال يا أخي وحن إمي كما كراي بران قبل لا تؤخر عمل اليوم إلى غد باله بريتو لحبها أورنين ولذلك وحي أورنجرتي بنت سيرين رحمها الله وحي أورنجرتي دليرada اعملوا الآن فإنما العمل في الشباب وإمك wax qabta imika saad xaqabo inta dhalinyarada wax la qabtaa ma aha بريتو le imika qaar baa koranay waxaan shaqeyn doonaa markaan guursado waxaan markaan guursado ama qaar baa koranay wallahi markaan iskool ka baxo khatar baa noqon iskool ka bixiyo markaan shaqo helo markuu shaqo helo markaan guursado markuu guursado markaan dhalo markuu ubad u dhashaan markaan koriyo markay koraan ugu dhintay khalaas waxa weeyaan waa runtii waa mid waa sawf walidalika wuxuu yiri ahad ulama junayd banu malanay imaamkii weynaa soofigahay sawfa jundun min junud iblis kalimatu sawfa bari tooladu bari wax qabanaya waa askarta iblis baa waxa qaale adima waxa saale weena taa garano tii saddexaad al-ghafla min az-zaman inaan waqtiga
ka maaratay ka maqnaano inaan qaflo galno waxay oran jireen culimmadu saddexa la iska ilaaliyo alquraa almudaahinuun culummada waxay dadku rabaan diinta ka soo saarta waad fahanteen iminka maalan waxaa la rabaa inaa wax la xalaaleeyo marka qaarkood dowladdu inay wax xalaashadaan bay doonaan culimmadu inay noo xalaaleeya dad baa culimo u xalaal dheer jirta kuwaas ka ilaaliyo amba shicibku say doonayaan diinta in loo wado maaha siduu ilaahay yidhi un dadkana lama aqbalo qofna lama aqbalo war kitaabku muxuu leeyahay sunnuhuna muxuu ku daray waa intaa arrinta labaad waxa weeye almutasawifatu aljaahiliin qaar intay cimaamada duuduubtaan sheekhays ka dhiga laakiin jaahiliin ah suufi waa jaahil maaha dhar maaha cilmigu dad baa matalan waa ku dagmaysaa marka kuwaana iska ilaaliya buule iyo aljabaabiratu alghaafiliin kuwa itaal waaweyn maaragtay oo laakiin waqtigana ka faa'iidaysan maskax badan lahayn ama wuxuu heli isagoo cilmi lahayn buu xoolo heli ama isagoo iimaan lahayn buu xoolo heli waa ghaflada marka saddexdaa shay inaan iska ilaalino waqtiga markaa waan ka faa'iidaysan karanaa waqtigiiba maaragtay aad noogu soo kortay wallahu ta'ala aclam runtii waa arrin aad iyo aad u ballaaran oo inaan sii wadna ahayd laakiin waqtigii ayaa nagu soo kooban waxaan aaminsanahay aniga iyo dhammaan daawadayaashu in ay u taalo hawlo aad iyo aad u fara badan oo loo baahan yahay in ay ku kacaan oo aynan dib u dhigin run ahaantii waxaan kusoo gebagabeeyey waxaa u cajab badan aayaddii ku jirtay mawduuceena xalaqadeenan caawo uu ilaahay lahaa aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah waa kuwan inta ay dhegaystaan hadalka intiisa u wanaagsan ka raaca gebagabadii barnaamijkeenan iyo ogolaada daawadayaal mar kale inaan magaciina aan u mahadnaqo sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo si fiican noogu soo barbaariyey nooguna soo bandhigay xalaqadan caawa waxaan ilaahay ka baryaa inuu arrintaas ka dhigo fi miisaani xasanaati inta ayaan kusoo gebagabeynaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu